waxaa faahfaahinno iyo warar dheeraad ah ay ka soo baxayaan dagaal lagu riiqmay oo galabta ka dhacay deegaanka Masjid Cali Guduud ee gobolka Shabeellada Dhexe. wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya Masjid Cali Guduud ayaa sheegaya in dagaal xooggan uu qarxay duurnimadii maanta kadib markii dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab ay soo rogaal celiyeen. dagaalka oo aad u xoogganaa ayaa socday in ka badan 3 saac, waxaana dhinacyada isku adeegsadeen hub culus. wararka ka imaanaya deegaanka Masjid Cali Guduud ayaa sheegaya in ciidanka dawladda ay iska caabiyeen weerar kaga yimid Al-Shabaab oo markii hore ka baxday deegaanka Masjid Cali Guduud ayay ciidanka galeen barqadii maanta iyaga oo kula wareegay si nabdoon, balse arrinta ayaa cuslaatay markii Al-Shabaab ay soo qaadeen dagaal xooggan. dagaalka la isku gabaldhacsaday ayaa la isku adeegsaday hub culus, waxaana dhinacyadii dagaalamay oo mid walba adeegsaday hub wuxuu haystay. waxaa jira khasaare dhimasho iyo dhaawacyo ah oo kala gaaray dhinacyada dagaalamay, inkastoo tiradooda aan si rasmi ah loo ogeyn. deegaanka Masjid Cali Guduud oo maanta ay la wareegeen ciidanka dawladda waxaa la sheegay in 3 meelood 2 meel ay haystaan dawladda Soomaaliya, halka 3 meelood meel ay haystaan dagaalamayaasha Al-Shabaab. wararka ka soo baxaya dagaalka waxay sidoo kale sheegayaan in gaadiid la kala gubay iyadoo aan si rasmi ah loo ogeyn tiradooda. waxaa socday duqeymo xooggan kuwaas oo ay bartilmaamaysanayeen diyaaradaha daroonka goobo ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. ciidankii dawladda ee maanta deegaanka qabsaday waxaa soo gaaray khasaare dhaawacyo ah, waxaana la sheegay in ciidanka qaarkood ee dhaawacmay Muqdisho loo soo qaaday. si la mid ah Al-Shabaab waxaa gaaray khasaare nafeed, iyada oo la tilmaamay in mid ka mid ah gaadiidkii dagaalka ay wateen kooxda la gubay. dagaalka ayaa xoogaystay kadib markii Al-Shabaab ay gurmadyo badan ay ka kala heleen deegaanada ay ka joogaan gobolka Shabeellada Dhexe, si gaar ah degmada Aadan Yabaal oo la sheegay in dagaalamayaal badan ay kooxda ka keentay. wararkii ugu dambeeyay caawa waxay sheegayaan in labada dhinac ay weli wadaan hub urursi aad u xooggan. waxaa mar walba macquul ah in dagaalkooda uu dib u qarxo, iyada oo mar walba ay suurtagal tahay in dagaal xooggan uu mar kale qarxo. Al-Shabaab ayaa weerar xooggan ku soo qaaday deegaankan, waxaana ka hor inta aysan weerarin ay isaga baxeen deegaanka Masjid Cali Guduud iyo deegaanada ku xiran. dhammaan deegaanada ka sokeeya Masjid Cali Guduud waxaa ku sugan ciidamada dawladda, iyada oo ciidanka ay helayaan gurmad xooggan, waxaana sidoo kale caawinaya diyaaradaha dagaalka ee duqeynaya goobaha Al-Shabaab ay ku sugan yihiin.